السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن آدم مركو هلو أرساق كتم لنك الله وإنو أغادا إنو الله سبحانه وتعالى سيي تاعك سيجيدنا وحا تردد بدن أو نمعادا كسي قادا كبرية سلويني وحانا يسري هذان هير كان أتاقنتها واحد كسو قاعد الددال يحيلد هلكا ياهيد إن إلهي وقم هاد عليان ويسكوينيان أو يكوتشا سيسان الله أبوري muuqaal keena maantana waxaan ku ogaan doonaa qisooyinka dad badan oo adduunka caan ka ahaa oo Allah aflagaadeeyay iyo sidii Ilaahay adduunka ugu ciqaabay. haddaba intaynaan u gudagalin mawduuca fadlan walaal like nagu dhiirigeli subscribe na saar channelka si ay ku soo gaaraan muuqaaladeeda dambe. Tangeredo Nafas waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiinta ugu caansan ee soo maray waddanka Brazil waxaanu mar wasiir ka noqday waddankaas ilaa markii dambe ra'iisul wasaare looga doortay Brazil. markii dambena wuxuu isku soo sharaxay madaxweynimada waddanka waxaanu yidhi haddii aan helo 500 oo cod ma awoodo inuu Ilaahay iga qaado xilka subxaanallah dabcan uu helay codkii uu doonayay xilkiina waa uu ku guuleystay intaan loo dhiibin xilka waxa ku dhuftay xanuun daran si kastana way isku dayeen dhaqaatiirtu inay daweeyaan waana badbaadin kari waayeen sidaas aanu ku baqtiyay intaanu xilkii madaxweynenimo qaban. jilaayada aflaanta ee Marilyn Monroe waa mid ka mid ah jilaayadihii filimada matali jiray kontomaadkii iyadoo caan ka ahayd waddanka Mareykanka waxaana lagu tiriyaa inay ka mid tahay hal doorka quruxda dumarka Mareykan. haddaba iyadoo maalin xaflad la joogo waxa uu yimid nin suxufi oo ahludiin ah waxaanay ku tiriyaa tahay dabadeedna waxa uu ugu jawaabay Ilaahay ha kanuuniyo diinta islaamka qaado waxaanay ugu jawaabtay ma baahni Ilaahaaga. waqti yar kadib waxa la helay iyadoo ku dhimatay sirriteeda markii la baarayna sun badan baa laga helay jirkeeda lamana oga ilaa maanta in la istishay iyo in la dilay. Thomas Andro waxa uu ahaa Thomas Andro ganacsade ballaaran oo ka soo jeeda Ingiriiska dhanka kalena ah injineer doomaha sameeya. waxa uu sameeyay markabkii caanka ahaa ee Titanic waxaana ahayd xilliga doonta ugu awoodda badan uguna quruxda badan caalamka. markii doonta dhismaheedu dhamaaday waxay saxaafaddu wax ka weydiiyeen Thomas doontan iyo dhismaheeda waxaan ugu jawaabay waa doontii ugu weyneed ee caqliga insaanku sameeyo xitaa Ilaahay ma awoodo inuu dejiyo. qisadan dhamaantiin waad ka wada warhaysaan safarkii ugu horeeyay la raacay doonta Titanic badda ayay ku qarqoontay halkaas aan ku halaagsamay ninkii Thomas ee Allah aflagaadeeyay. gabadh caan ah oo ka soo jeeda waddanka Brazil gabadhani maalin maalmaha ka mid ah waxay doonaysay inay asxaabteeda safar dalxiis la gasho iyadoo isla gurigooda ka bax waxa qabatay hooyadeed islaantuna way ka wareersanayd inanteeda oo may doonayn inay meelna u baxdo laakiin gabadhii way madax adagtay oo way diiday inay iska joogto. ugu dambeyntii islaantii hooyada ahayd inanteedii bay gacanta qabatay waxaanay ku tidhi orod Ilaahay garabkaaga ha gale. waxaanay gabadhii ugu jawaabtay waxba Ilaahay ugama baahni gaadhigaanu raacayna waa gaadhi waasaca. sidaas aanay gabadhii yarayd Allah subxaanahu wa ta'aala u gaftay. saacado kadib markay safarkoodii ku sii jireen waxa inanta hooyadeed soo gaadhay war sheegaya in inanteedii iyo asxaabtii la socday shil baabuur galeen baabuurkiina intii ay ka saarnaayeen oo kaliya ayuu ka burburay halkaas aanay inantii ku halaagsantay. Cazuza abwaan iyo fanaan ku dhashay magaalada Rio de Janeiro ninkani isagoo jooga baar lagu tunto waxa uu cabayay sigaar kadib intuu sigaarka qiiqiisii kor u afuufay ayuu yidhi Ilaahaygo adiga inta leh. intaa kadib waxa ku dhacay xanuunka AIDS-ka markay da'diisu ahayd 22 sano waxaana u baqtiyay si xun.